طيب بسم الله الرحمن الرحيم وحنا نقول قلدي ولا برلمانك هي قلت ما دعوت برلمانك مات فهم واي مدد إسرائيل يابا مدد شركة شربة وأنا وقرن واي عليهم مبرمان مبرمان بيا ورانو dadka meesha ku jira ma aha tamaanta dhacday wixii say u shiraanba u fariistaan say u hadlaan standardka baarlamaannimo way ka hooseysaa Afrika oo dhan baarlamaanadoodu ay wax wanaagsan doodaada yes iyo no way sama bal horta inaad sugtid ninka gudoomiyaha waxa uu soo jeediyo mikrofon baa hor yaala ninka markaa diidid qodob aad diidan tahay waa inaad farta taagtaa waa inaad doodaada dhiibataa tira waxba kama jiraan ma ogolin kaa kale waa inuu isna sidoo kale yidhahdaa waan ogolahay si nadiifa dabeetana waxaa la kala ogaanayaa ajendaha cidda ogol iyo cidda diidan nambarkooda iyo cidda diidan waxaan arkay dhowr qof oo mar kasta oo la shirayo iyagoo sugin hadalkii ayay sii kacayaan wuxuu dhawaanay meesha gudoomiyaha markaasay iska bilaabeen oo mid filmbrigi barbaria dumarka qaar way qusayaanba waxa haystaan waxaan riwaayad wadankii mustaqbalka wadanka riwaayad baa loo haystaa okay taas waa taa maxaa had iyo jeer dad aynu magacyadooda garanayna ka dhiga 5 qof oo xagga hore sii taga oo foodo sameeya taas garan waay fahmi waay marka 5 qof ma ogola in wanaag ka soo baxa meesha ما أقولها ساس وقتها يربك ما هالصلاة أقول ده أساس هي ما هالصلاة هرنا ونشيني وأنا أتنشك تجعل اللي دقيسته حدان حتى بارلمان كا يميلها الله يسوي منها أنت قرار بسوق قرية معنا سميني أروح كبحية أساس الله يجلس هي كذا هي أيو وحركة أبار بكر هذا والقوم بابا وسوق قرية ماشي كذا هي أبار حب الله تكتي رمضان بكترت وياي ninkii farmaajo dadkiisii waxtar leeyahay iyo waxtar laha waaya farmaajo diyaarad qaaday maalintii dambe haye raashin baa la geeyay reerkiisii wuxuu soo qorayaa mid artay nin reerkiisii u kiilaya wada xaga marka ilaahay dulbada wadinka habra kaga wahiyo marka ninkan mucaarimadu baa ka luntay gaadhigu markuu break uu qaban waayo oo bilar uu ku qaaday islaam baa ka haysa aye ma hasalaad ayo ma hasalaad سعدية صلاة ولا صلاة كم بابع صلاة كل عادي بها صلاة كم بابع ده بدي يساعد الصلاة وبلو نلا لا حلو أو وزير هانشر يمكن مشرحة أو أدنى حقه روسيتها يا بس لكن ما هالله سوق في ما هالله ساس تاويهم مرة درخيس أيا كمردي قبل إذا أيا كاحر سمربا هي مركو جورجة تجنا شرط رايدنا ما قبضوا إحنا مغرفنا وسكاوسا لكن بارمان كان لما تسكره إنه طلع قال هي جوجيلي سعدية صلاة وسي استاجس قدوميها والفرنو بسم الله الرحمن الرحيم مرة بنت ويلا نو ولا قص لسه ويا ان maanta dumarkii oo dhan baa inta isku soo xoomeen qolo dawladda taageersan oo ka xanaaqsan dumarkan kale ka soo horjeeda ee mar walba foodo meesha la soo frimbi laftiisa waa ku jira soo baarka frimbi baa ku jira wasna frimbi isku yeedhay oo saakir soo ilaabay frimbi iska yimid frimbi saga mushkiladu ma arko nin la yiraahdo Axmed Madoobe ayaa soo dira ويهذا قيلي شوف لامبو كسعدا او markuu berigi uu saasi baa ka diyaar fulay u tagay oday intuu yiri wasos sidig yiri ay meedi sidig bisa soo diyaas soo gar sidig maanta uu kalmay mid kale soo kaliya ha ay saadina uu dhici waay bal maana balka ma tisday wal sidig balka bastood marka la ridayo barbar ku dhacay mar bay xabadu ku dhigtay iska dhigis ruuxan eegay dadkan horta maxaa ka maqan dadka gabadha la saadaysa maxaa kaligeed uu ka dhigaya iyadoo qof dumar ah xildhibaana mas'uuliyad haysa inay noqoto number 1 halka hore istaag oo miisas garaac oo foodo u sameeyo weli ma aris adiga mikrofon si nadiif ah ula hadlaysa ummadda Soomaaliyeed xildhibaanada la hadlaysa waxay aaminsan tahay ka hadlaysa faradid ma jirto dadkan fishan koodi waxay ku soo koobeen dantii ummadda Soomaaliyeed
كما هذليان نين لا يلامق عيسى فرماجو مدحوينه فرماجو مدحوينه فرماجو عبد الله فرماجو مدحوينه عبد الله فرماجو محمد عبد الله فرماجو محمد عبد الله فرماجو مدحوينه عبد الله فرماجو مدحوينه عبد الله فرماجو مدحوينه فرماجو عبد الله فرماجو الله مدحوينه محمد عبد الله فرماجو مدحوينه فرماجو مارنتو محمد عبد الله فرماجو ما وحي كان محمد عبد الله فرماجو محمد عبد الله فرماجو مدحوينه جمهورية فدرالك الصومالية وين محمد عبد الله فرماجو Abdullahi Mohamed Farmajo. President Farmajo. Farmajo has made this. President Farmajo. Farmajo need to sit down. President Farmajo. Farmajo working to bring Farmajo. Farmajo now has gone to Government, Farmajo's government, Farmajo himself. And Ibrahim Farmajo. And Farmajo. Farmajo. Yeah. Farmajo is just not. Farmajo. President Farmajo. Abdullahi Farmajo. President Mohamed Abdullahi Farmajo. Ibrahim Farmajo. Mohamed Abdullahi Mohamed. Farmajo won. Farmajo. أي حكومة كما هذلان أي دنت أمد الصومالية كما هذلان هلا أبارة كما هلا أبارة كما هذلان أجانبته كما هذلان كين هدول نصور كما هذلان بدأ هدي ربدي هو كما هذلان بدأ حوبة أمالين بما يدعوا له الأقبلية ما غبايا كويس كله أي waxaan oran lahaa saacadii salaad bari waxa jiray odayga wuxuu qabay naag aad u hadal badan oo ka dhinac hadasha oo markuu jiraado odayaasha la hadal ninku nin degan weeye bay iyadoo leh ay dhac ka soo gashaa maalintii dambe yaasino reerkii ayaa meyd la soo dhigay meyd qof inta la soo diray nin ayaa gurigoodii gadaashiisii la soo dhigay odaygu isiri kaadi tagisiri ayaan baa arkay meyd halka yaala meyd daridu yaan tooshii raxba ku ifiyey soo nin la diray gurigu ku soo noqday islaantu dad tuu garaniyo qabay wuxuu na dhigayso meyd baa la noo soo dhigay xaal aad buu xinay lagu xiyaad baan arko way soo egtay mise ilaaha daaweyn bisinka yaasinka baa halka wuxuu dhigay saadaba يعني شيء shirqool iyo mu'aamarad bay noqon kartaa odayaasha beesha meesha wada degta ayaan u yeedhayaa waxaan leeyahay arrinkaasaa dhacay anaa u warramaya bilaa calayg هجاك هدلي بري قولا يقامس يقامس ميتك أسترتي ميتك أنت هذليو ميتك قدرة نمك أودياشة يدا كلمة هاي أورن شاهو نص كري بيها أودياشة وكان شو أورن أمس أنت ما اسمك تبرت والله سهل أيه أوديك سيدو جيت كويس تبغى وياري أوديش هي أنا واجب سيدو هالشاهي أي سوق هذا أوديك هذا كبير يدو ملا ماشين كده دو شاهي بكراش ويحدقس وعيري وياري هن وحنا دو كياري iyada marka meesha marmaraysa xalay markii saacadu inta ahayd ayaa gurigeena dacalkiisa gadaashiisa halkaa markuu marayay ayay soo bodo tiri ayaa nin meyda la soo dhigay odayaashana ma ogeyn wax dhacay odayaashii ku jinsanayaan marka fox saareen gabadhii oday waa ka leexdanba ma intuu la eka gar ma laha bidaar ma laha imse jir buu ahaa odaygu baa arkoon islaantiyo shir jira ka dul qabatay wali kaarta day islaantaas waxa soo sacdaysaa wallahi saaxiibadii caadi ba war ummadda u keena wax wanaagsan oo ay ku diirsadaan farmaajo haddaad ridaysaan iyo haddiidana rideenba anugu dan imraatoona kama lihin laakiin hadal qurux sharciyeysan oo nabsan ciyaalkii damtan iska daayay ujeeddada u weyn waxayd maanta inaanu shirkaas furmin maxaa la gudboon hadaba guddoonka nimankan waxaa la gudboon in sharciyo qabanaya xildhibaanadu ay jiraan anshax iyo asluub iyo qodobkaa ninkii ka gudbaa inaanu fadhiga dambe iman karin wasaas wey intaas ayaa meesha horta ka socota haye qodobka maanta ajendaha laga hadlay waxa ahayd covid-19 in laga doodo sidii dee wax loo qaban lahaa haye ama dadka looga difaaci lahaa cudurkaas saas weeye ama dawooyinkan talaalka loo gaarsiin lahaa wasaas waayahay haye dadkana waxaa ku qafilan farmaajo wuxuu kordhisanayaa waqti buu kordhisanayaa intaas haddii aad wax isku qafishidna haddii aad wax isku qafishid waxaa mooyaan dheg kale marihid waxaa jira berigii dibitaatiyada xildhibaanadii hore aftalyaaniga malaa dibitaati baa la dibitaati nin laga soo doorto beledweyne hiiraan
iyo nin gobolada dhexe Dhuusamareeb laga soo doortay ha ninka beledweyne ha ayaa ilaahay amarkii ninkaas la culoobay haye mudugta laga soo doortay ninka mudug laga soo doortay haye khayr kama soo jeedo bis wax kasta oo ninkaas soo jeediyo no buu oran jiray niga daay wax nabad ma jirto haye ninka la culoobay ha wax cadna kuma hayo oo yiraahdo ninkaas qodobka iyo qodobkaas ku haysta laakiin wuxuu isleeyahay markaas far taagaba labada dhagood buu taagaya haye inta meegaas ha maalintii dambe ha ninkii dibitaatiga ahaa ee mudug laga soo dooranay ama gobolada dhexe ayaa yimi fadhiyo la fadhiyo ha ayuu kii beledweyne laga soo dooranay naab yar buu qaatay indhuu yar casaystay yar gabadh casaystay ha haye doodii baa la bilaabay dood bilow ninkii gobolada dhexe dibitaatiga wakiilka ka ahaa ha ayaa markan soo jeediyay in dugsi sare laga dhiso beledweyne warkaas ay karay arrinkaas arrin baa soo arrin wanaagsan war fiican waayahay markii uu sidaa go'aansado doodii soo jeediyay ha oo sii dhamaynayo ama kan hurdada ka kacay no umbuulun no ma jirto maxay baa lagu ninkan waxa uu sheegay waxba kama jiro xagga oo kan baa no walu ka tirmeesh dibadda markii loo baxay ay baa waxa la yiri wareede dib maanta khalad bad samaysaa haye waxa baxad wada maxaad ninkan hadalkiisa u diiday war ninkan hadal wanaagsan ma keenay buuri ana og danteedana kama shaqeeyo sida uu kala tiriyo aye waxa la yiri oo wuxuu lahaa dugsi ha laga dhiso sare maxaa dugsi sare ku diiday meeshana laga dhiso markaasuu yiri ma dugsi sare ku hadlay oo beledweyne ha oo kaamiyaan sir khayr baabu sheegay ninka khayr ba kama sugan waxaan siga qaatun buur marba inuu wax dumanay marka qofka lama sharaysto wixii aad ku dhaliilaysid iyo waxaad ku diidanto dhan soo qoro ha maanta media de waa laga arko adduunku 1 minute bas ku maqlayaan halka ka soo dhig baarlamaanka kaga hadal shir jiraayad qabso adduunka oo dhan tus doodaad haday caqligal tahay ummadda wad kasbanaysa laakiin nimanka intaasaan odhanaya dadka standardka markaan ka hadlayno MP-ga dadka xildhibaanada yaasino maanta barnaamijka sheekooyin baan u badanaya laakiin sheekooyinku waa xikmad bay leeyihiin dad badan baa ka faa'iidaysanaya nin boqoraba wuxuu lahaa wuxuu jeclaa dalxiis tago hadii jeer kayntu geli jiray uu soo ugaarsan jiray marka jawiga maalinta waa roob oo maalin waa qorax oo maalin waa dabayl nin wasiira ayaa u qaabilsanaa saadaasha hawada waa rin fiican ninka wasiirka mushaar fiican buu qaataa been iyo run buu isugu daraa wax allaali wuxuu rabo marayaba wuxuu yidhahdaa wiiga maandoon baxee sabtida saadaali markaasuu yidhahdaa sabtida qabow baa jira waxaa jira roob waxaa jira hateyn okay wiiga dambe yidhaa maantana berri maalina ka fiicanta ma jirto wuu maqlaa wandhay waxa dhacday ka warran buu yidhi berri mahaysaa dambe inaan kaynta galaan doonaya waxbuu dee isku dubariday wuxuu yidhi maalin ay ka fiican tahay ma jirto waa qorax roob ma jiro qabow ma jiro duufaan ma jirto ninkii xaaskiisa ciyaalkiisa buu boqorkii la baxay duurkuu galay duurka markuu galay yaasino ugaartii waxbuu iska tegey roob baa cir iyo dhul isqabsaday duufaantii u darayd harikayntii ayaa bilaabantay odaygii iyo laba ciyaal iyo isaantiisii marba geed bay isku qaadeen kaynta dhexdeeda weeye siday u daalaadhacayeen oo marba biyo ay bashtaa ugu hayeen haddaba boqorkii dhammaa aynba waxay arkeen guri cariisho oo qoryo ka samaysan looxaan oo dhisan oo aad u weyn oo kaynta ka dhexsan dameer baa ku hor xiran iyona isma lahaynba bini aadan iyo guri iyo meel aad ka gashaan duufaantan ayaad helaysaan dalqi bay gudaha mise nin baaba dab intuu iska shitay dab intuu oogay iska shitay ayuu kulaalayaa halkana hilib solaya ayuu iska cunaya boqorka ma yaqaano ninkaas wuu soo galo dee raggii dadkii soo qoyay wareedha waxaan ku weydiiyey maxaad ahayd dee ninkii gurigan iska ahaa degan baana wuxuu yidhi maanta miyaad baxdaba wuxuu yidhi ma bixin oo roobka halkan ku yimaado halkan ku jira dab baa shirtaa oo maxaad u bixiyday maanta waxaan ogaa buu yidhi in maanta waxaan dhacayaan dhibkan dhacayo duufaantan iyo hawshan iyo waxan in badan maa meesha deganaayo waa kala garanaya ayaan kala garanaya wuxuu inoo ii sheegay daba sidaad ku ogaatay wuxuu yidhi dameer ma kusoo dhaafteen albaabka hortiisa dameerka ii sheegay buu yidhi dameerka caqli badnaaya war ma dameerka roobkii kuu sheega ونو سيدو كوشاga wuxuu yiri dhagihiisu hadii ay taagtaagan yihiin
ما بحو معناتها ساعدي تقرادات هي حدو لابو ما يوحي هدو ساو تاغتاغين ما بحو جو في عين هي دغا هدو سو لابتها بلا يا دعيس لا لله تو قد بيس ساك marka soo kacay buu aan sirin bax واساس ay marka baaliyo saa u dadan لا لله وك عربي ana wala afgarto dab bas ka shito cunto لا لله ninkii boqorkii cunto yaxbusi wuxuu dhayso boqorkii wadanka xukumay baale haye ko maxaan ku sameeyaa please dameerkan iga sii lacag waliba xad dhaaf haye lacag badan ayuu dameer ka siistay haye dameerku boqorka haystay haye gulii wasiirada ayuu u tagay uu shiray haye ninkii baa shaqada ka yaray baxwi xarigna ugu daray wasiirka haye kiis laanta muxuu saadaasha wada haye wuxuu yiri wasiirkii hore shaqadii baan ka yaray gulii wasiiradu la hadlaya haye wasiir cusubna waan keenay haye iyo wasiir cusub baa lagu soo bedelay oo isla shaqadii hore haya saadaasha hawada haye haye kii hore uu ka daacsiiyay buu haye waanu ka run badan haye wadameerka haye dameerku marka sidii wasiirkii ayaa busto iyo alaab iyo qabowga laga saaraayo qol buu leeyahay oo mushahar fiican buu qaataa ama caws ha ku qaato ama biyo ha ku qaateen shirarkana kama soo qayb galo wasiirkaas wasiirku wuxuu yidhi dameerku waad dheersanaysaane run baan idiin sheegayaa intiina meesha fadhida wasiirada in badan buu dameerkaasi dhaamaa golahan baarlamaanka golaha shacabka in badan oo fadhida yaasino maanta run baynu ku hadlaynaa dameerkaasaa dhaama boqorkuu sheegay oo dameer dhaamayaal yuu hadli bee war hadda ma garat intaa ayaynu kaga gudbi doonaa